مجتمع الصومالي قال هذا شني لباتن لا لباتن سنة إن شاء الله تعالى قارة أفريقيا سيهو قامدونا معطيات باجرة معطيات كتسعة حالتنا سوق زجرة مجتمع لو دقالن قولوا دكان نجحي تاكل دقالنتو قولوا بضها كالا دقالنتو قولوا عركها كالا دقالنتو لكن waxaa tahay mujtamac saddex sifo leh saddexdaa sifo mujtamacaadka Afrika uu ka baarag badidooda foogtahay maran miskiisa uga sheegay Minnesota aanu joogo wadaadadii sacabka iska tansiiraysa mar waxba sacab tumina insha Allah taala laakiin aniga xaqaa'iqa wada الحقيقة الأولى وحوي مجتمع الصومالي هو ديناميكي ويان ديناميكي ويان مجتمع متحرك ويان مجتمع أقبل ما حالة سكونية وقتها المجتمع بلا دولة ولا على تصلوا حالة استثنائية وين لكن سمست سيستم يكون ولا كرو دولة سمست سيستم يكون ولا كرو سمست محاكمتي بقى سيستم بها محاكمتي سيستم بها هلا سمست والله قصوا بحي دولة الأنتي جمعياتكي وويناء سوشقية هيئاتكي إسلامية اسمي مدارسك اسكول ذا وزارة التعليم العالي وزارة التربية الوطنية الصومالية هاي كشغل صح هل اسكول ما لها اسكول هذا جمعيات بالها والراس مستي هذا شقينها وحي سميين السودان بعتقي آلاف الطلبة هذه صبح مديرية الواقع صباح صباح اوكي مصر اعتقي ودليردي ماليزيا ودليردي تركيا ودليردي من صنع هؤلاء ديناميكية الصومال ديناميكية سميش ذاتك مجتمع الصومالي لم يجوجي كرو كم حبد الله بعض المجتمع الصومالي حتى سنتها دي اللي هذا اخرية بوغيا كلينتون waxay tiri dadka Soomaalidu waxay leeyihiin ثقافة الأنجلو-ساكسون oo ah maxay qorto protestant oo waxay leeyihiin al-iqtixaam ma absadaan way jiraan meesha waa lagu dhimanaya wadaadada ma artimo soo saarnay waxaan dhahnay badda waa lagu dhimanaya ninka isdilo waa dhimanaysa ma aqbaleen ay soo koraya dowladda adeer iska joob ku leeyahay adoo ka soo noqon leeyahay dil dhimarayay aniga waa soo socdaa ku leeyahay الرجل جائي أمريكا سوي مادين dadkan waxay soo gooyeen Atlantic maxay soo raacay duuniya soo raacay majaaniin baa dadka yimiday America halay waxay ku yimaadeen maraakiib ma jirin diyaaradna ma jirin maalin anoo la socdo diyaaradda daayira mid baa garab fadhiya dad baa jabka diyaaraddu ka cad cabsada markay wadada garab fadhiya saabal oo qabsada markay Atlantic soo socoto iyo baasha qalqatay ninkii waa qalqanaya marka aan ku dhageys adeer meesha duuniya lagu yimid dafaac Soomaaliya halka hoose markaysa tuufaanka ka dhacay wala soo dhaxmaray waxaan adartay Clinton iyo Abeeshud اقتحموا شخص صاص سؤال الاسودي Soomaaliya wuxuu ka yimid dhulka adduunka uu ku nool amba i'tidaal kul الحياة waxa la isweydiiyay maxay ka soo dooneen meesha raada Minnesota oo adduunka meesha ugu qabowa علمية ولا جواب كدواي لكن قفك Soomaaliga wuxuu daba socdaa meesha dollar ka arkayo oo jooga yasna dollar Ethiopia ma bari saamid xawashiya Ethiopiana oo taksiila ayaa rag buu qaadaa saxaabtayo waxay siiyeen lacag bii hore waayeen waxay soo saareen dollar $100 u dhibeen weyne waxa jeeday ya Soomaali way sameeyaysaa lacagta buu اوكي عجيب هذا وفي صديقه من قصواني وهو مقتحم ثقافة الاقتحام بولي مكا وحيالة إلهي نسيه كميتا سبحانه وتعالى وكنت سيينات سمينيش تصدحا بتقانا الصومالي هو متمرد على النظم ما نظام أقبله سيستم كجيدا صوالي سهل الله صعد أحسن بالله صعد هذا وحينها بتقانا صانعوا الحضارة هم المتمردون بالله لكن متمرد هدول جاهت لأجل تمرد مشكلة موتها تمردك وينه مركز دمي مادو قوم اللدة صحابته محايا عبد الحسن الندوي كتاب كيس أخريا ماذا خسر العالم حتى إلهي محو أدورت عربتها محو رسالة دو قصو ساري وإلهي روما أبا قريك
amba shiin dhulka xadaaradda uu uga soo saaray saxraaga dadka fawdawiyiinta ee bila dowladda bila nidaamka sakay taagay waxay ahaayeen ibaa geesiyaal waxba ka cabsan wuxuu sheegay buu leeyahay halkaas taagnaa adduunku inuu soo arkay kii baa la xambaarsiiyey risaalatu islaam markaa buu marka akhwaani fillah waxaan uga jeedaa imika xaaladda waa ka guuri doonaa xaalatul istiqraar baan guuri doonaa marka waxaan arkaynaa acraadani laa taduumu tawiilan waa inay bas inaga soo saartoon dad si iijaabi u fikira okay aan marka waxaan rabaa waalidka saddex sifo leh wuxuu ku najaxayaa ubadkiisa inuu u dhowaado dhawaashaan ka hadlaya kow sifada koowaad waxaa dhada alijaabiya positive waa inaad u fikirtid markaad fikiraysa sid positive-ku waxa weeyaan waa qofka aan dareenkiisu waa qofka 5 arrimood leh positive waxa qarta waa nin marka uu nolosha galayo aaminsan inuu guuleysanayo ilmaha waan barbaarinayaa saalix baan ka dhigayaa haddaad isleedahayba ilmahan maxaad ugu daali xabsi u geli doonaa dhibaataa jirta laa ilmahan waxaan ka dhigi doonaa iijaabi waa qof markuu taariikhda eegayo xumaanta taariikhda kama sheekayo عبره كقاطع وقف واقع متدمر عن هيم إيجابي ما متدمر واقع كعب صنيع ما وقف المستقبل كأغيانا أمل كأغي أمل رجوع وقف احترامنا صنك وضحي سيستم كإلهي دي كوك يو احترامه شنتا شيء مركو وارد كليه إيجابية هو نقول يقف أدو الميس اللهم waxaan u baahnay waalid facaalku waxa weeyaan ma taqul ifcal waxaad waalid ilmaha ku leedahay samee abo salaadna la tukado tuko abo ruuxa la sheego rusheek abo aabaha iyo hooyada jeclo adigoo aabaha hooyada jeclo hadduu ku maqay waalidkii soo hadlayo inna lillahi adigaas allah adiga أنا يجعلوا أذكر هذا كما تفعل أبو فعال والد فعالة واحتر له نقو وضمين والد ناجح الوالدية الناجحة والد ناجح نقو نلشع وحكو صدريا وإلمها وإنه كواركينا تهقف وحسمينيا ما أقف عليسا حسمينيا وإنه أبهي وعالم أبهي ومفكر أبهي وشيخ أبهي وبيع مشتر أبهي وشقو بس مو وضعها أبهي تاكسي مو وضعها أبهي نرشو سمايا أبهي حمقت أبهي وأفريقو ديرز أنا وإيقظوا يعني نقضوا يا سعودكو ديرز مقايل يا ما يهلا يا المعير الناجح يصنع ناجحا والفاشل يصنع فاشلا أوكي يا إخواني في الله هدف كان كلنا إن المرة بينا محوية هي أنا كمركا حقا قربي كمركا جوا ما هي رجل بيت كجوا ربنا محانو وجدنا أنكم ما أبورة إنه سيدا ما عرفت عفوا سيدا رجل بيت كما أبورة إنه قف وطني ونكسل وقرات أنا هو حاول نقف بني آدم ونكسل إنسان صالح إنسان صالح بحكرة يا إخواني كلها صالح بحكرة هاي وصالح كندينا وصالح مريكنا وصالح إنكريسا يوكي هدو جوغو وصالح صوماليا وصالح عربة صالح أنه وناكسن صالح كلمة وحويان واقف صوبوي هذا هو هدف التربية اسبدنا رأي المهر أنكو إنا اسكو ديرين المها يب أكيل عنه أبا أوغو هذا كنديان متي هذا كده إنها لله خلطة مقتي أنت مقتي هو كنديان ولا قد وجدت كنديان أبا أوغو هذا كنديان متي هذا صوماليا تاي اسكو على هذا كنديان تاي وزرع البها دغال سرع يا أبور هذا أبور أبا أديك waxaa tahay مسلم كنديان asalkaagana waa Soomaali asalkaaguna waa Soomaali diintaadu waa Islaam
waddankanna waad leedahay, waad ku dhalatay, waad u dhalatay khalaas xuquuq dhan ku leedahay, kanadi inaad tahay saa ku rabeynaa tarbiya siya yactaz bikanadiyatihi. dhulka yaa leh alardu lima ya akhwani fillah lilah. haluu ku nool yahay kanadu ku nool yahay, dhulka ilahi buu ku nool yahay. walaqad katabnaa fi zabuur maca dikr ana alarda yarisuha cibaad saalixiin. marka dhulka ilahi baa leh subxana watacaala. ilmaha waxaa u sheeg oo barab, ha ka dhaadhicini laba qof ilaa ka dhigtid. akhtaada ugu waaweyn aan gallo annaka markaan wadaadanahay taasa ka mid ah, amba soomaali baan nahay. okay, hadafka tarbiyaddu ay leedahay waxa inaan samayno qof ina matala. suuraddeenii muraayaddii iska dhex arkaysa nebi yacquub muxuu ka yidhi ubadkiisa maa tacbuduuna min bacdi qaaluu nacbudu ilaahaka. haddii iska dhex arkay yacquub ubadkiisii uu reebay risaaladii nacbudu ilaahaka bayca ballan wa naxnu lahu muslimuun bay ugu dhaween. aabo nimo wa anta mustariix, waxaad ka tagtay rijaal min bacdik. ilma aad iska arkaysid waa inaad ka tagtid naajix. okay, marka aad meel geshid aad tirahdid kan maaragt sheekha idhahda kan anaa qur-aanka xafidsiiyey, maanta muxuu yahay? waa looyar, sumiintuu difaaca, ilkuhuu daweeyaa, calooshuu daweeyaa, wadnuhuu daweeyaa. ninkaa ma arkaysa oo ka soo baxay rajulu naajixa. saalixu ma rabno, naajixa rabno. okay, risaaladeennu waa inay samayso tarbiyadeennu insaan risaali ah, qof mesaj leh, qof iska nool ma rabno, qof tira una ma rabno. alaharu albaaqi baan rabnaa. mara hunaa wa hada huwa alasar. xaggan yaa maray? xaggan waxaa maray cali. inuu maray maxaa ka maragaa? raadkana ka maraga. okay, masjid khaalid hada yakuun yabqa mush majiri weliga liba waa jira. okay, kuwa ragga ahaya iminka iyo kuwii ka soo asaasay iyo xayamuutuun biyowmi alayaam insha allah ilaa cumriga u dheereeyo. حين 60 70 سنة مر هنا وهذا هو الأثر. marka jiilka risaaliga waa inaan samayno. okay, waa hadafkeena tarbiyada. tarbiyada maxaa uga jeedna markaasayno ma aha inaan samaynayno waxa igaas waa in hadafka markuu qofku hadafkiisa dheeraysto dhexduu soo gaadho. laakiin tiraadi ilmo yar waxa rabaa in cunug yar oo quraanka xafidsan ilaahay uu gargaaro tukada on himadeenu yara tukada ama tukada salaad waa sax weeye. waxaa rabaa qof islaamka ku haysta في وسط حضارة أمريكا الشمالية، مسلم معتز ديتي زهزتا اخترع انجنيار قرآن حفظا. هذا داوتان قناة كذا قناة الفجر ولينو صغموي قناة الفجر الفضائية قرآن متخصص وانجرتي مصر طاول شيخ جرتي لانه سيشد. هذه القناة واحد سوق جرتي حفاظ لا يلاحظوا المهنيون أعوذ بالله ونينو قراشيستي باوركو iyo salaxinaya xawada quraanka xafisiye tabiib quraanka xafisa soo amali jirahidi wada quraanka akhriyay waxay soo galin jireen siyaasi weyn oo caalami ah oo quraanka xafisa min weyn oo dhaqaalisti ah quraanka adduunka way yaqaanaa sida niga Ibrahim Shamir oo kale iqtisaadi caalami ah quraanka xafisaya oo rag waxa soo gal yaani dad kala quraanka waxa xafida maaha dadka fashay bal bajis azar waxa laga jiray ilmaha jiran wadooga ma qusta ciyaar hadu dhaw saddex caruura oo laba ay yihiin jirkoogu midna مثلا uu leeyahay caaha bashariya كعهد وقال جلاسه وجنجري إلهي بوسينا حتى قال أحد العلماء إلهي بيسير النضيحة والمتردية يا إلهي لو دري سبحانه وتعالى قال شيخ النقضة شيخ النقضة كان مسكين كاس قال لا عربنا إنه قفك قرآن كبرنا وحديث كبرنا وفقه كبرنا ما إنه نقول درويش لا دروشة في الدين ودادو دروشة كبحيو dadku ay ka tuucsanaao sheekh muxuu sheegay ma wadaada adan waa wadaada kii soo fadhiso waa xal ku tusay taal bas marqaysan ماذا تريد اوكي marka waxaan rabnaa isaaka risaaliga hadafteena اوكي اخواني في الله ilmaha muraahiqa ee laga fashilmaya waxa sameeyay maaratay bi'a samaysa bi'o sama samayso
بيئة واحد هذا علماء بيئة تربوية رسالة كلام بحين بيئة هذا التربوية ديجان تربية انفيرون ما ولا سميه بيئة تربوية waxay u baahan tahay ilaa 7 laakiin shashi ma ka shaqeynaa أهم بيئة تربوية waa guriga weeyaan guriga waxaa jirta 3 بيت 3 aqal baa jira 3 reer 3 guri la socona bal guriyada midka uu yahay ayadoo waxaa jira guri dhado المنازل الداردة guryo ubadka eriya ilmaha marka uu joogo xabsi uu dareemaya inuu buxu rabaa abo soo ciyaara abo meesha taga abo muxuu ka rabaa adiga meesha inuu fadhiyo lacaya manzilka waa daarid waa eriya manzil labaad baa jira guri labaad oo soo khalis ah manzilka labaad kan waa daarid soo maaha manzilka labaad ilmaha waxa uu dareemayaa inuu yahay meel oo marka uu fadhiyo uunan isagu ishelayn manzil غير dab kalaale isma helayo ilmooyo aabihiis kama dhex arko hooyadiis kama dhex arko walaalihiis kama dhex arko bii'adan iskama dhex arko hada laysa manzili waa kahf hog waa qabri dibadii ma jeclo waa manzil kale المنزل الثالث waxaa المنزل الجاذب waa guriga ilmaha soo jiidanaya ilmaha guriga soo jiidanaya maxaa la rabaa inuu yeesho guri mutawaazin oo inuu rabo ilmaha dadka Soomaalida qaar waxay jecel yihiin waxay ku ilmaha waa in laga cisho inuu galo netka ha u dhiibin hadii waxaan oo ka wada xareeyo هذا مش تربية ودانا أعطي كل شيء بحرية مطلقة مش تربية بقى حال ربها إنها سيست وكل رقمه لكن تحت الرقابة وكجره أوكي زمنك يوحو داوريو كل شيء تحت الرقابة هذا مهم جدا كم يعني كرتين لكن لبار من قدر له أرمها على البنكة هنبرنه نيكا رجع واحد سوا سعر وقع العرس وبتكوجو ما هيستعن أبناؤهم لا يملكون لأنهم عرفوا أن الذي يتعامل مع هذا لن يكون له أثر في الكون نقاربتها ونكون نحجلها حمص من دور تاريخها تاون الشيء المحيا الله ووسيله هدف معها بر معرفة على جهلها خير على جهلها شر على جهلها ذو حدين إذا منزل نوع عاص علمه أوامرته كبدني النواهدة الوصايا العشرة في القرآن قل تعالوا أتلوا حفاظ وأمسة أوامرتي نواهده وعشان سوسازمين وإسلاك تحي بينما الوصايا العشرة في التوراة كلها نواهي لا تزني لا تقتل أو لا قفك مركع أي توراة سمينة سوابحي وشخص صلبي قرآن كنون سمينة شخص سمينة متوازنة سمينة أوامرتي النواهي دول بلوتي الغضام منزلك هو ما شاء الله بعض ومحي بأذى بعض ومساجدك وأنه مسجد كونه مسجد جهادي بس يكون سوجيت أوبتك مسجد جوابتك قرآنك وحافظان كون عيارات يلعبون فيه أوبتك وحلدي بقول كيبا شن إيه سديت النشد واللعبة ومن منع منهم اللعبة سرق منهم الطفولة ilmaha dadka ciisuu ciyaaro maxaad ka xaday arunimadiisi ayaa waxa tabist annaka umidkeen oo farsada 8 saacadood iskuul tagaan 3 saacadood miskiinka quraan ku xafidina intii kalena aqabka ku xidhnay ilmiyo saa u kaban 8 jir markuu gaadho afdiga xor noqdo oo buu ku warani salaamu calaykum ay madax xiroobiyo ku koran قرآن قدري دينا بري وحاهلي ما أعطيت حقه في اللعب خلي يمرح وضك أن يشكيني يا فنلند وحي لادين ثقافة اسمين 6 ساعة سوما سوكل منكم بقية وحي لادين علمه إمسا ساعة ضد بواحد يسكرها علم نفسي شان يلا بعد تمرد شان يتوان لا شان تمرد شان يتوان تقريبا كبض علمه كل وصع ضوء dadkii waaweyn ay ninkaan shalay soo dooda ugu badataan
iminka anaa iga shaqaynaysa waan nuuraya moogta waan ogahay inaad maxaadaro dhegeysan haddeeto leanna macluumaadku way bateen waxaad dhegeysanaysa haddeeta garhkayga indhahayga waxaa fiirinaysa ciradayda hilibkayga booradayda wax badan baad la socotaan laakiin cala ayati xaal ikhwaani fillaah waxaa muhiima ciyaalkaas maxaa la yidhi tababar baa la siiyey macallimiintii waxaa la yidhi 3 saac ciyaalka waxa loo dhigo 8 saacadood maxaa ka soo hadhay 5 saac 5 saac kale maxaa yidhi ciyaarsiya yaa la ciyaaraya macallinkii yaa la ciyaaraya mushrifkii tarbawigii yaa la ciyaaraya mudiirkii maamulihii dugsiga yaa la ciyaaraya wixii oo dhan xagee ku ciyaarayaan iskuulka dhexdiisii lacib si ugu jiraan ubadkii casharkii way soo dhigteen way soo xafideen lacibkiina way wadaan waxay imanayaan gurigii iyaga oo soo dhammeeyay shaqadii aqalkii wuxuu noqonayaa waxaa dhisanaya ubadkii iyo waalidkii waa la sheekaysanayaa aabba maanta dabbadaala ciyaar aabba ma sheegana waa la soo mahadid khalaas badigii iyo meel kale igii iyo ma dhahayo muslimiinta Finland joogtana maxaa dee 2 saac oo quraankii yaa u soo harayso ay geeyaan waqti qaad ilmahan uu soo dharkii bixiyaan oo ka soo dharkii okay annaka markaa waxaa la rabaa inaan masaajidkiina aan uga samayno ubad had iyo jeer meelay isku fuulayaan ay ciyaaraan waa muhiim jiddan ilmo hadduu ciyaari waayo waa laga xadidan okay madrasad dugsi waa inuu jiro dugsi waa inaan yeelano dugsi namuudajiya dugsigeen waa inuu jiro oo bi'o waxaagii baad u sheegay cilmigiina waad u sheegaysaa cilmigii waddankana waad u sheegaysaa waxaagina waad u sheegaysaa ilmihii marka 2 qof ma noqonaya waxaa kaloo jira oo loo baahan yahay inaan yeelano iclaam ikhwaani fillaah muslimku inuu yeesho warbaahin dadka oo maalqabeennada oo soomaalida ah warbaahinta soomaalida oo maalum dhegeysto oo taalle haddii laga helo 3 warbaahin oo mutakhasis ah oo warbaahin ubadka iyo warbaahin fikri ah iyo diini ah haddii la helo iyo warbaahin buuxdo oo qadaaya umma ka shaqeysa yaa waxaa warbaahin oo dhan inaga ka fiil lahayd marka iclaan facaal haddii la helo oo ubadka la hadlaya waalidka la hadlaya aabbaha la hadlaya hooyada la hadlaya qadiyadii laga sheekeynaya la hor fadhiisanayo aflaan noo samaynaya islaami ah soomaali ah waxaasoo dhan muhiim bay noqon lahayd okay ikhwaani fillaah waxaa kaga baxaya maxaadarada acdaa'u tarbiya ilmaha yar marka la rabaynayo waxaa jirta wax dhahda cadowga tarbiyadda muraahiqa waxaan u fahmi laanahay acdaashana jirta cadowga kuwa mataqaanaa waa ihmaalka ilmaha waa lala saaxiibaa moogta ilmaha waa lala saaxiibaa saaxiib marka la noqon lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay ilmaha tusin inaad u tahay aabbo ee tusin inaad saaxiib la tahay annaga kaljarkeena waa aabbaan ku hay wey laa ilmaha ma raba inaad aabbo noqotid horo in la saaxiibtid wuxuu kuu sheegay mashaakilkiisa oo dhan gabadha hadduu iskool ku jeclaaday oo kuu sheegay aabbo gabaraan jeclaaday laakiin haddaad aabbo tahay uu kaa qarin mar unbuu ku waranayaa aabbo hee waxaa soo wada de gabaroo maxay muslim aha ma garanayo laakiin haddaad saaxiibtihiin uu kula tashaday iyuuna guursanay siduu u guursanay waa saaxiib baa tihiin ihmaalka iska ilaali mar dambe ha baraarugin ilmaha wax ku soo biirana la soco waa cadow ihmaalku waa cadowga tarbiyadda koowaad waa ihmaalka waxaa aad u ah qiyaam alqudwa inaad noqon adigu nin lagu daydo hooyo lagu daydo ama lagu daydo annaka waxaan inta badan laga dayanaya maaha uun salaadiyo soonka waa muhiim laakiin waxaa laga dayanaya waa dhaqanka waxaa ka tirahdid samee waxaa u diidid daa camaliyana ka arko qof wanaagsana ku arko namuudajiya aad u sarreeya ku arko u noqoyo model u noqo qiyaam alqudwa waa cadow ilmaha qudwu samaysanaya ilmaha rab telefishinka meeldhood waxaan ka arkay meelaha needka waxaan ka arkay ku yaroo afghanistan waddankaa jedish misi ninka dhacdo kubadda xariifka yaa gacanta soo qabtay wuxuu la soo galay xeradii kubadda lagu ciyaarayay malcabkii sawirkii markii la qaadanayay ciyaarka uu si orahay socon kari kiina uu bixi kari waayey intuu orduu soo noqday
markaa ninkii saxafigii wuxuu yidhi ma hooyan karayo xubbigu u haya Messi kama bixi karaya meesha qudbi u arkaya haddii sanac waa la sameeyey qududan Messi qud waa laga dhigay waa gartay maaha maxay dhahdaan aqooyahanku maxay dhahdaan haddaad rabtid ummad inaad deshid 3 shay laga dilaa bas maxaa laga dilaa 3 shay qoyska la baabi'iyo ummad bilaa qoys waad ka adkaatay haddaad doonayso ummad inaad deshid waxaa laga dilaa qudwada culummada maanta culummada islaamku intii qudu u yihiin annaka jiilu saxwa markaan ahayn culamaa u saxwa culamaa u dacwa noo ahaa qudwaad labaatan jiraan ahaa laylata jiraan ahaa culummada waxay yidhaahdeen walaa tiisi walaa miisi walaa kolak xuma hayaagtida way jireen haddaa kuwa annaka naag fadhiya jiro madoonna naga dhado heesi jirtay horta ma jirta wali maantidaas madoonna iyo jeclaa jireen annaka waxaan ka daba dhacaynay culummada islaamka iyo culummada saxwada cajiradana soo baxday kelmadana soo baxday kitaabkana soo baxay waxna soo baxay markaas baan noolaan jirnay qudwa okay maanta way yar yihiin jiil shabaabi oo inkastay jiraan qaar oo maaragtay kuwa afafka ajnabiga ku hadla yaa dhalinyaro jecel way jiraan لكن ما هذا الحب الذي كنا نعرفه في زماننا ما يجري هذا الحب روح على جربها غياب القدوة ومشكلة أريد صدحات والعقلية المتسلطة قفك أو دكتاترك ما هو نضياش إن حكومة سياسيتها دكتاترك يقول يا خطر صار أريد تاوان دي سوكم منهم ما أقولي لما سمعي كرو هاي ما عليك ما أقولي إن العلمية هو اسمحوا كريها أبها وما أقولي ها ولا نبي محمد لا ذكر صلى الله عليه وسلم صلاته دعالت قبسين أمضى تنطلق به حيث تشاء حاجة إيجابية وحقوقنا ونعطتك يعني وجوابي باهيدو شهدو لا ما أرجل متصلقا لو فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك مهم عقل المتصل عدو وحكلوا عدو قياب التنسيق مسكيتك يقرقوا هدي ولا شقي ويان اوكي معلك قرانك او دغه ilmaha يوالد ويل ولا شقيان ilmaha waa inuu buug ka qoro waa inuu wax ka mulaaxadaad almurabbi معلك quraanku inuu mulaaxadaad sameeyo ilmaha waxaas ku soo biiray ilmi nafsiga waa sheekh waa inuu yaqaano ilmi maartay tarshiyada iyo tarbiyada yaqaano wixii uu sheego waalidkuna uu yaqaano oo isla fahmayaan علاقة jirto hadii tansiiqa la waayo waa cadaad tarbiyada waxa kaloo cadaad tarbiya kamida عدم معرفة الأهداف هدفتك قرن لماذا المها محاويستا عدم معرفة الواقع رياليتي اللي قلنا لي هي بيئة اللي قلنا لي هذا قروينه يظن والله قفش المياه اوكي